marka farqixinta iyo saxiixu waa lamaano oo kala ma maarma sida badan okay waa gartay farqixintan markii la rabo in la bartaahi ma waxay leedahay shuruudo u gaar ah maxaa kamid ah shuruudahaas waa sharfan tahay wax walba waxay leeyihiin sharci adduunyada wax qurxiyo ma ahan qofka shakhsiga ma aha ee sharciga jira weyn xarfahan ama farqixintan waxay leedahay sharci aan laga talaabi karin qofka dabcan khaldana ama si kale u qorana isa sharci safartiisa sax noqonaynin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الكسر دعوة مركل برنامج كي قالن يقرأ له هذا هنوكل كذا وطن مغلبهيها قرنكا دعوة داش أن جعلنا هيو برنامج كي نقلن يقرأ خرا واحد وجبرتين إن إذا كوجسوا قد بيو قراء يدقني هيسا تضبط كان شاكدو أنت واكب بدلنت لكن وأصل قرالكي هذا بقى أنت أنا إدين شيء شخص كبرنامجك magaciisa iyo waxaasoo dhan inta aan idiin sheegin aan yara daawano bal warbixintan uu noo sameeyey saaxiibkay soo faysane cabdifataax ibraahim oo bulshada garanaysa ay u taqaan ustaad amiir dabcan haddii aad ka mid tahay dadka isticmaala baraha ay bulshadu ku wada xiriirto waxaad xasuusanaysaa inuu yahay mucallimkii farquuxinta iyo saxiixa ee aaladda tigtag caanka ka ahaa waa hagaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay saaxiibkay soo faysane warbixintaas ayay ahayd halkii aan ka iqtiraacay ama aan ka soo tixraacay ama aan dabagalka uga soo sameeyey la kulanka cabdifataax ibraahim amiir ustaad amiir in aan la kulmo stuudiyo aan ku marti qaado halka aan ka bidhaansaday ama aan ka soo tixraacay waxay ahayd warbixintaasi uu sameeyey saaxiibkay soo faysane waa uga mahad celinaa toddobaadkan barnaamijkii ayuu marti ku yahay ولا جوجا استوديو أيو إلى فديا أستاذ أمير وكعجب مع علينا وقت قعد نصه هرتي يكقبل كبرهمش كينا مركا وربحنت هذه وماشي عن كسر تخرعي هلكي معناها إن برهمش كمان أنت أنكو مرتقاده مركا وجورين وحن جعلها هاي بل أنيجا يداود يا شكله inaad macnaha aad faahfaahin naga siiso cabdifataax ibraahim amiir ustaad amiir waa kuma horta waa maasantahay dhammaan asxaabta ama bahda tv-ga aad baan u salaamay runtii barnaamijkan inaan kasoo qayb galna qalin quraan aad baan ugu faraxsanahay waana markii ugu horreysay aan soo booqo telefishinka horta anu magacayga saxda ah waxaa leedahay cabdifataax ibraahim amiir dabcan dadka waxaan ka mid ahay magaaladan xirfadda waxbarashada ama macalimada ka shaqeeyo dadkuna waxay ii goran ogyihiin ama ii yaqaanaan waxa loo yaqaano ustaad amiir tii la yidhahda baraha bulshada dhinacyadiisu kala duwanba laakiin aniga waxaan ahay sidii rasmiga ah macallin howlahan weliba si gaar ah u dhiga waxa loo yaqaana howlaha farqurxinta iyo saxiixyada marka shakhsiyadeyda muxuu ahaa dadka ii goran ogyihiin waa magacaas okay waa gartay bal xirfadan oo ah farqurxinta صحيحة وضطة وإذن صحيح سل سعودة وحرفض لبرتو من سهلنا هندسها قاب كفرت الله قرحيو أما الصحيح إن له هندسو مفات صحيح لسمياهي محاول يرفضت معها مركا قورمات باللاودي أما آد اسكو أركتي بالهيبادان وشرفتها ولا الغالية هرت حرفضاني حرفة أو محوها هاي معهن هبة أنا قان والله هاي وحوية وتعليم وحان برتوي ما جرو قف dadku way kala duwan yihiin waxna waa hibakeen waxna waa barasho anu xirfadan waan bartay waxaan bartay muddo hadda laga joogo adigu 8 sano abaf adiga 2014 aan bartay xitaa markaan baranayay hadafkayga ma uusan ahayn in hadda aan dad sii baray waxaas shakhsiyad macallimi iguma jirin kuma shaqaysan xataa hawlahaas laakiin waxaan u baranayay war waxaan adiga ku anfacayaan shakhsiyadaadu horta fartaan bara marka hore fartii waa macallin aan saaxiibanahay waliba qisada aan ku bartay waxay ahayd jaamacada aan dhiganayay ayaa de muxuu ahaa aan meel koobi yar aan saaxiibanahay soo baxnay waata kuliid kale soo dhiganay aqoon uma lahayn kuliid buu dhiganay kuliid kana dhiganayay adu meel photocopy aan warqad u doonanay warqadiya marka waxaan arkay fartiisa oo ku qoran tahay far aad u qurux badan dadna waxaan weydiiyay saacado haba la jeeriyaa weydiiyay waxaan in adaro fartaan yaa qoray wuxuu yirana qoray inuu meen ka faa'iideys karaya Allah ku barkay maadaama sidaan u taqaan waa diyaar buu yir buugi keeso inta break time ka jaamacada aan ku jirnaa waxaan u dhigi jiray u keeni jiray buugi farqixinta ahaa wasan uu dhigi jiray mar aan uu gambiye mar aan uu gambiye adigu muddo waxaan ku jiray ku dhawaad 5 bilood 6 bil ah aan dhiganayay
ilaahay mahadiis wax badan baa horta ii bidhaamay meesha aan farquxinta ka keenay asalkeeduna ninkaas uu ahaa ilaahay ajir ka siiyo maanta asaga ayaa muxuu ahaa abaalkaas iska leh dabeedna waxaan bilaabay inta aniga aan markaan bartayba inta anigu aan jaamacadda dhiganayay intaan isku galaaska ahayn inta jaamacadda dhiganayso markaas soo raacay tixraac kala samaysay waan baray weliba si lacag la'aan ah maadaama naftiga aan ku bartay lacag la'aan ahayd xirfadda sida rasmiga aan ku bartay waxa weeyaan waa qoraal dhigis baan ku bartay dad badan aan u dhigay waa iska sii dhigay ugu dambeyntii mar dhow hadda 2019 aan macallin iskuulka ahaa macallin iskuul baan ahaa aan ilmo yar saddexaad ah markii manhajkan loo bedelay afka Soomaaliga maada liigu dhiibay af Soomaaliya maadadii baan dhigayay sanu dhigayay waxaan iska soo xasuustay koleeto xirfadan waa taqaanaay bal ilmahan in adeero mal ugu darba lixisa aan hawagaas halkii fasal lixisa ahaa lixdiisa ayaan waxaan sameeyay mid kamid waxaan ka dhigay farqulxinta ilmihin waxaan ku ijbaariyay inay casharka siis u qoraan farqulxin ku qoraan farqulxinta iyo casharka wada socda ayaa markii ilmihi ay qaateen ilma saddexaad ah weeyow oo gabdho iyo wiilal isugu jira ilmihi waxay ku soo baxeen wax aan la mareysan karinba horta maalintaas aniguna waxaan ogaaday in xirfadaani aan dad bari karo laftigoodu wixii ka horeeyay waxay buug iska qor iska hasbay ahay laakiin si jamcan ah oo group ama koox maalintan dad u baray waxay ahayd 2019 markaan arkay ilmihii ay soo baxeen oo kala kuwii form 3 form 4 ay ka sareeyaanba waalidiintooda qaar waxay codsadeen in xirfadan aan u faa'iideeyo meelaan school hawle online waxaan ku bilbilaabay ugu dambeyntii hadana waxa ilaahay qadaray inaan furo xarun lagu barto farqulxinta iyo saxiixiyada taas oo hadda ay ka aflixeen ku dhawaad 4,500 arday oo waliba si offline online kana saxad lehen ilaahay haatan akademiyadu way furan tahay waxa leedahay akademiyada farqulxinta ee Amiira leedahay waxay khaas u tahay oo aan kaga shaqeynaa oo kaliya waxa loo yaqaan handwriting farqulxinta iyo saxiixiyada waxyaabaha ay leedahay faa'iidada aan hadda ka arkay waxa kamid ah ama ay leedahay ba farqulxinta طبعا haddii aad macallin tahay wax badan aad ogaan karaysaa ardayga haddii imtixaankii uu qoray ama waxyaabihii uu qoray aydan akhri karaynin natiijada uu keenay wax macna sameeymayso muhiimadda waxa weeyaan qofkan afar xaraf ba qoree laakiin waa in afartii xaraf uu qoray noqdaan afar xaraf ee la akhrin karo la fahmi karo laakiin haddii su'aalihi oo dhan uu ka wada jawaabo طبعا la akhri waayo wax faa'iido ma laha faa'iidada horta ay leedahay farta taas weeyaan si gaar ah macallimiinta oo kale hadda tasdiiba la qaadaa oo markii iskuulka loo qaaday ama jaamacadda waxyaabo badan de macallinka waxa ugu horeeya priority koowaad waxa weeyaan handwriting-kiisa weey dib macallinka cilmiga ka buuxo laakiin wuxuu sabuurada ku qoraan la akhri kareynin طبعا waxba laga faa'iido ka dhiganta taas marka waxa weeyaan waa qodobka loo yaqaan farqulxinta muddo markii aan waday sidoo kale waxaan soo kordhiyay oo soo ikhtiraacay waxa loo yaqaan signature-ka saxiixiyadu iyadu waxay ka dhalataa farqulxinta طبعا qofkii farta si fiican u yaqaano shuruucdeeda yaqaano qori kara akhrin kara si fiican u qori kara farta qurxin tahay saxiix uu yaqaana waxay u baahan tahay kaliya in yar oo design-keeda tusiyo ama nashqadi marka farqulxinta iyo saxiix waa lamaano oo kala ma maarma sida badan okay waa gartay farqulxintan markii la rabo in la bartaahi ma waxay leedahay shuruudo u gaar ah maxaa kamid ah shuruudahaas waa sharfan tahay wax walba waxay leeyihiin sharci adduunyada wax qurxiyo ma ahan qofka shakhsiga ma aha ee sharciga jira weey xarfahan ama farqulxintan waxay leedahay sharci aan laga talaabi karin qofka dabcan khaldana ama si kale u qorana isa sharciga safartiisa sax noqonaynin sharcigaas waxa weeyaan xarfaha waxay leeyihiin ani hadda waxaan ku saleeyaa si gaar ah English aan ku saleeyaa oo ah 26 ka xaraf 26 ka xaraf waxay leeyihiin ninka la yiraahdo magaca horta muxuu ah Cabdullaahi waxay leeyihiin shuruuc loogu talagalay 26 ka xarafadani waxaan u qeybinaa oo aan kala qaadnaa saddex qaybood saddexdaas qaybood waxa weeyaan qayb waxa la yiraahdaa madaxley af Soomaaliya ku sheegaynaa madaxley baa loo yaqaanaa qaybna waxa loo yaqaanaa nugley oo lugta hoos bay aadaa xarfaha hoos bay aadaa waa sida laada oo kale ma afwan laada ma waxyaabaha korka aada waxa kamid ah 26 ka xaraf 7 xaraf weeyaan xarafka loo yaqaan B xarafka loo yaqaan D xarafka loo yaqaan H F K L T ku kor aad hadda sheegayna xarfahaas haday kor aadaan waxa kala soo haray waxa weeye 7 xaraf kor ka aaday 7 marka laga jaro waxa soo haray iyaduna 19 kaas iyaguna waxa leenahay 5 waxa kamid ah iyaguna hoos soo aaday oo lugley baan naqaanaa hadii aan nahay baada farqulxinta kuwa hoos soo aada marka waxa kamid ah xarafka loo yaqaana gaada ama jida jeyda ama jada sida Soomaaliya u yaqaanaan
xarafka b da ee hoos u jeeda b ferventa ah q iyo y shanta xaraf iyaguna waxay soo aadaan hoos bay aadaan 15 waxaan ka hadlaynaa 7 lagu daray 5 waa 12 soo ma inta soo hartay 14 xaraf way isku makhraj way hal meel ba iskala soo baxan iyaguna waxa loo yaqaanaa ubucli yani waxay leeyihiin dhaxda sadarka aan la dhaafi karin way inkastoo buugaagta marka hore farta waxay leedahay laftigeeda buug marka hore loogu talagalay oo 4 sadar leh oo cabirka xarfaha lagu barto dabeedna markaan cabirka xarafka baratid buugaagta caadiga ah ayaan u talaabnaa sida badan laakiin sharciga lama taabtaanka ama muqaddaska farta ay leedahay waxa weeyaan waa xarafka kor aad inuu tago xarafka kale inuu hoos aado xarafka kale dhexda ku socdo shuruucda muqaddaska ah ee farta laga rabo taas weeyaan xarafkan qurxin ma kaaga baahna waa haddii uu sharcigiisa ustaad amiir waxaa tiri anigu hadda waxaan wax ku saleeyaa waa luqadda ingiliishka macallinna waa tahay dalkiina waxaa laga hirgeliyey manhaj afka soomaaliga maxaa halaysan ama maxaa kaa hortaagan inaad ku salayso afka soomaaliga waa sharfan tahay oo shaqaladii soomaaliga very good waan ku salay karnaa laftigeeda waxba kama duwana waxaan ka soo qaadnay waxa weeyaan laatiinka markaan idhaahdana luqadaha hadda aadka loo isticmaalo waa ingiliishka طبعا haddii aan isticmaalo afka soomaaliga xarfo ayaa ka maqnaan doona af soomaaliga xarfahaas marka dadka inta badan ardayda jaamacada dhigtaa ku jiraan dad muxuu ahaa macallimiin ay dhigtaan dee af soomaali bas dadka kuma koobna mogta afka kalena way bartaan si marka looga baaqsaa laatiinkina aniga af soomaali waxba kama tegin ogow laftigeedu xarfii kor aadayna way ku jiraan laftooda xarfahan aan sheegay waa af soomaaliga waa kamid yihiin anigoon waxba ka tegin wax dheeri kusii darayba wax xumaan maana samaynba af soomaaliga waa ku jiraa meesha ingiliiskana sidoo kale waa gartay okay weli anagoo ku dhex jirna qaybtii farqurxinta marka maxay tahay farqurxintan matalan hadda anigu fartaan qoray macnaa qaabkaas hadda wax u qortay aad bay u qaldan tahay waan iska boobsiistay warqad cadana wax ku qoreen laakiin cabdifatax ibraahim amiir ustaad amiir waa la akhrin karaa waa hee la akhrin karaa qof kasta waa akhrin karaa marka la fiiriyo fartaasi farqurxintaasi maxay muhiim ugu tahay dhinaca waxbarashada marka la fiiriyo waa sharfan tahay qof kasta wixii qora hadii la akhrin karaa sax micnihii farta ayaa meesha ka lumaysa ka bixisaba sax waa la ogahay aniga markaan hadda ardayga iimaanaya ma weydiiyo waxaan weydiiyaa wax loo yaqaan hal qodob oo ah horta wax ma qori kartaa ma akhrin kartaa haday jawaabta ha tahay wuxuu u baahan yahay waa farqurxin hadii laakiin uu soo qori kan akhrin karin farbarasho u baahan yahay طبعا marka dadka iimaada waxaan u farqurxinta u baray waxay tahay ama faa'iido laga leeyahay waxay tahay war qofkan wax uu qoray wixii lama akhri kara adoo dawad qortay laftigaada inta wax ka qaldan yihiin hasaatee waa la akhri karaa laakiin qof academic waxaan ku qaldan macnaa uma qalmo marka la fiiriyo sharciyan marka la fiiriyo qofka marka meelaha laga fiiriyo oo ugu muhiimsan main bountiga waxa weeyaan waa fartiisa weey mar walba oo qofkan qofka kale ka farqulxsan yahay waxay ka dhigan tahay qofkan uu ka muxuu ahaay uu ka wanaagsan yahay uu ka macnaha aqoon badan yahay laftiga waa dhihi karnaa mar walba markaas oo qoraalkaaga badan yahay ay fartaada quruxsanta mar walba oo qoraalkaaga badan yahay ay fartaada aniga xataa waxaan ka sameeyay eriyo xogaa markaas sugaan leebana waxyaabaha aan ka sameeyay waxa kamid ah waxaan iri wax aadmigu fahmaayo fiicana wanaagsane sida canug falaadkii far u qorana waa ceeb waxaad meesha ku qortay waa canug falaadkiisa runtii marka laga hadlay ni weyn wax qori uma eg laakiin mid xisaabta ma ku darsatay maanta iyo shalay iyo daraad way kala duwan tahay shalay adigu markaad wax soo baranaysa daraad aniga markaan wax baranayo daraad anigu markaan wax baranayo shalay adigu markaan wax baranaysa lama mid ahayn waa kala duwanaa maanta markii laga reebo xilliga yarka ah oo la joogo iskuulka markii laga reebo dhammaan xafiisyada xilliyada kale waxaa la adeegsadaa waa aaladan aaladda kombiyuutarka iyo teleefon ayaa la adeegsadaa aan ku weydiiyey marka maadaama adugu waxaan shaqadaada ay tahay kombiyuutarka systemkan ma leeyahay waa gartay kombiyuutarka wuu leeyahay inta faraha hadda aniga aanu dhigno dhammaan wuu leeyahay laakiin qofka mar walba hadduu ictimaado kombiyuutarkaas waxyaabaha hadda keenay dhibaatada waxay kamid tahay waagii hore aaladaha nima isu jiri jirin dadkuna way far quruxsanaayeen waxa keenay waxay ahayd laanna wax kale oo baahidooda bedeli kari maba jirinba waxay ku qasbanayaan marka inay fartaada iska qurxiyaan waxyaabaha hadda looga tagay oo dadkay farta badan ay macnaha farta u baranayaan oo isu soo tarayaan baahidahooda waxaa kamid ahba qofkan at least 30 above sano ayuu wax baranayay
foobteema bas waa keeb computerka wax ku barayay hadda markii uu u baahday inuu wax qorana qalinka xataa qabashiisa way ka dhuntay taas waa ayaanba u dhiirigelin aan shaqo galnayba in aan dadkii war ayagoo xirfadoodana yaqaana tanna ay ku biiraan gacantooda maalaan ma maqashay waxaa leedahay biyo sacabadaada haraad looga beelaa barasho iyo tacliin baa horumar lagu bineeya yacni aaladan waa wax iska teknolojiya marba iska halaabi kartaa waxba iska noqon karaa maanta adoo wax ku xisaabtamay computerkaaga uu ku habaysan yahay uu kaa dami karaa dee macallin baa tahay ama arday baa tahay nood muhiim waa loo muhiim wax qorto waa qasab haddii waxaad qortay berri aadan dib u akhri karin runtii cillad bay leedahay waa gartay waxaa jirtay fikir aan aaminsanayn xilligii iskuulka aan dhiganaynay oo ahayd haddii xataa su-aasha aad qalado oo su-aasha aad garan weyso laakiin wax kale oo qalad ah aad ku qorto laakiin wax aad u qurux badana far aad u qurux badana ina macallinkaasi dhibco laga helaayo in macallinka dhibco laga helaayo laakiin wax saxa haddaad qorto laakiin macallinkii markuu farta arko uu ku qanci waayo xataa macallinkaasi wuu ka caajisayaa sixitaanka xataa inuu wakti ku geliyo laakiin wax qaldan marka aad qorto laakiin fartaada ay qurux badan tahay macallinkaasi inuu marka adigu inta aad bal wax samaynaysay maku soo martay sheekadaas ani hadda macallin baan ahay iskuullada magaalada mid ka mid aan ka shaqeeya arday baan wax u dhigaa waxaan u diraa waxa loo yaqaana Soomaaliga maadada afka Soomaaliga dhigaa anigu takhasuna u leeyahay hataa baajkeeda aan dhigtaa waxaan u diraa mararka qaar wax loo yaqaana ka shaqaysiga maskaxdaada curin qofka wuxuu soo qorayaa mawduucii laga rabay mawduucana marka qaar iska aadaya ma fiiriyo muhiimadda waxaan eegaa bas horta ardaygan wax ma isku dayay kow laba fartiisa ay tahay xaqul qalam waxa anagu bixin hadaan macallimiin xaqul qalam yani qofkan juhdi uu bixiyay dabcan waxbuu qoray fartii uu qurxiyay wuu mudan yahay in wax la siiyo anaga marka hadaan nahay macallimiinta waxaan isticmaalnaa xaqul qalam oo macnaheedu yahay qofka wax qoro hadiiba wixii xataa kharij baa doon yahay وحديث لقى الله لكن سؤال أي فيكس الجواب تاعي لقى ما الله لكن هدي وحن كهذا الويرادو أما وحن كشيء الويرادو عندك موضوع خارج الموضوع حتى أوقله وهو المير دو يديه وقار لكن وحرفهم كلا فينا رسمي حويان فرطس وجيت كلي عريس كواحد تاعي قف كان فرتز القيمة لأن السؤال يرى كمان لقى سو جوابه فرلقوا قيمة كرا مكتب أفر حبوي لكن قف ممكن هل بيج أملوه بقدرتد طبعا قيمة كرتا فرتز غير كمرية marka waa sameeyna waan soo martay ma okay aan aadno dhinaca saxiixa asugu saxiixa marka aad aragtay bal inta aad ku dhex jirtay waxyaabihii la yaab ka lahay ee aad kala kulantay maxaa kamid waa sharfan tahay niyo waxyaabaha la yaab kale horta aan la kala kulmay saxiixa oo dabcan dii xirfada ugu dhex jirto wax badan waa la kulmaysaa waxay soo martay nin kamid ah dadkan magaalada ka ganacsada oo maasha Allah muddo ayuu dibadda ku maqnaa adiga magaaladu ku ayuu ganacsado ahaan jiray laakiin safar yaro aaday dabadna wuu soo laabtay lacag bangiga ugu jirtay uu doonay inuu muxuu ahaa signature ku soo baxsado wuu saxiixay dabcan saxiixiisa waxa ugu dambeysay aduu hal sano abaf ayuu ka moogaa waxyaabaha hadda qariibka macnaha aan soo qaadan laakiin way badan yihiin waxaas saxiixii wuu saxiixay wuxuu saxiixayna wuu garan waayay wuu soo celiyey akoonkan hal sano abafna ma uusan shaqaynin ugu dambeyn waxaa leeyahay niyahow inaad saxiixaas ka soo bedesho horta lacagta waa soo qaatay muhiimadda waxay ahayd soo qaatay laakiin waxyaabaha asiga ii soo wariyay waxay ahayd in ninkaas saxiixaas ku dhawaad 10 mar lagu soo celiyay oo leeyahay ma iska fiiri ugu dambeyn heer wuxuu gaaray markii dib in shaashada laga tigay saan adim ahayd saan adigu saxiixino waxyaabaha markaan ka soo qaato waxa weeye saxiixu wuxuu leeyahay miisaan fadhiyo aan isbedeli karin haddii laakiin qofku wax iska qarrafiyo dabcan si uu qarrafiyo hadhow kuma soo celin karo waxyaabaha inaan iidin hindisay ugu keenay waxaa kamid ahaa qodobadaas aan kuu sheegayo oo kamid ah in wixii qofka uu qoray uu dib ugu soo celin karin anoo taas ku duulay aan waxaan sameynay ama aan sameeyay design-ka saxiixeed wax la yiraahdo 26 xaraf ee Ingiriiska ama ABC-da dabcan magacyada Soomaali ee baxsan oo intaas kama baxsana xaraf ka baxsan ma jiro xaraf walbana wuxuu leeyahay design u gaar ah oo loo sameeyo oo muxuu ahaa qofkii magaciisa wuxuu ka bilowdo wuxuu yahay oo la isku habeynay 3 magac 4 magac hadda aan anees hataa muhiimaddu waxa weeyaan qofkan saxiixiisa inuu fadhiyo oo maanta hadii 30 mar uu ku celiyo sidii u soo qoro is bedelin aydu sidaas tahay caqabad baa jirto oo markii hore aan kala kulmay waxay yiraahdeen rag badan intuu saxiix u sameeyay waxay yiraahdeen macallin waxaan wala koobiyi karaa waa ka dafaya waa la koobiyi karaa sax waay
saxiix aan la koobiyey karin dunida waa dhif iyo naadir laakiin waxaa lagu kala duwan yahay waxa loo yaqaan serial number saxiixan adigu waa samaysanaysaa ama waa lagu samaynayaa markii aad miisaankiisa ku fadhiisto waxaad u samaynaysaa secret number ah ama serial number ah ama astaan adiga ku darsanaysa ku gaara طبعا qofka inuu koobiyey raba asaas ma fahmi karo waxa garan karo oo kaliya qofkii asaga lahaa hadii marka saxiixa la koobiyey oo saan u fiirso waxaad ku darsato aad ku weyso طبعا waxaad dhigtaa saxiixan anigu mali waayida dab aan ku soo darnay in serial number lagu daro oo qofka xitaa aniga ii sheegan lahaa inaad rada shaqo bini aadam way moogta anigu saxiix sameeyay laftigeeda ii sheegay adigu ku dar serial numberka sidaas marka waxaan ugu badbaadnay in saxiix badan la koobiyeeyo oo muxuu ahaay lagu isticmaalo okay maadaama su-aashii aad iga daftay weli ma la kulantay saxiix aad qof u samaysay oo qofka uu qaatay oo laga koobiyay maya laakiin su'aalaha uu soo noqday kamid ahayn hadda qof dhahayo niyo waxaad ii samaysay wixii waa rag baa wax ku baxay ama wax baa wax ku samaystay aday dhahay ima soo marin laakiin waa su'aal iska imaan kartay haddii iska qarsan way dhici kartaa laakiin hadda qof waaqici ila wadaaga ma jirto laakiin taxadirkaasi adigu ma kugu jiray markii hore iguma jirin laakiin markii su'aalahaas li weydiiyey oo liina waxaan la koobiyey karaa haddii la koobiyo waxaan samaynayaa ee waxaan sameeyay nashqadaas ah serial number in loo sameeyo marka hadda saxiixda aan sameeyaa boqolkiiba boqol qof walba markaan u sameeyo design-ka waxaan dhahaa inaad serial number adiga ku gaar ah adigu waxaad ku darso laakiin wax uu qofka fahmi karin aad leedahay ka dhigo dhibic ba Allah ka dhigay طبعا qofka koobiyay nashqadan gaar ku fiirna laakiin dhibicaas ma eegay moogta asagu ma dareemi kara marka hadda waayadan daba wax hadda culaysyadaas ay ka taagan in neeba ma jirto qof walba waa loo sameeyaa qaar ardayda farta bartana iyaga sameystaba anigu ma sameeyo qofka haddii farqo xunta barta waxaan dhahaa bas design uma tusiya furahan tusiya okay waayahay marka macallinna waa tahay waxaan ii sheegtay qayb ka midana weli inaad waxbarashada dhinaca ka wado oo adigu weliba arday tahay dadna aad waxbartid marka aad fiiriso ardayda Soomaaliyeed ama jaamacad ha dhigto ama dugsiyada hoose dhexe sare ha dhigto ma ku muuqatay ama haddaba ma ku muuqataa baahi ah in fartaan la qurxiyahay inay muhiim u tahay waxbarashadu aad iyo aad baahi waliba waxaa jirta xad dhaaf ah oo aniga aan ku filnayn okay waa maxay marka fariinta aad rabto inaad gaarsiiso fariinta maamulayaasha iskuulada dalladaha iyo waliba guud ahaan bahda waxbarashada waa sharfan tahay haddii ay tahayba qof laftigeyga haddii maanta aan ahlahay qof amarkiisa uu shaqeynayo si rasmi ah dabcan waxaan ku soo dali lahaa farqurxinta maadooyinka iskuulada ugu dhigaa maado kamid aan ka dhigi lahaa horto haddiiba maanta aan awood sida madaxweynaha aan noqon lahaa ama title aan ku hadla aan heli lahaa laakiin hadda soo jeedin waayo waa iga talo bahda waxbarashada jaamacadaha meel walba guud ahaan wallahi runtii maadadaas waa muhiim waa qasab haddiiba loo heli karaa xiisad la geliyo ama position la geliyo haddii la heli karaa maadada handwriting in hal semester ama hal grade xataa ardayga uu ku soo qaato waa muhiim talada aan bixinay waxay tahay waa ardayga aad soo saartay si walba u hagaagsanaada macluumaadkaas oo xambaarsanaada haddii wuxuu qoray aan la akhri karin wax macno ma samaynayso ardaygaas waxa weeyaan waa imtixaanka ku dhac ka dhiganta marka waxbarashada waa in lagu soo daraa haddii dalladaha waxbarashada iyo wasaaradda iyo guud ahaan xataa muqararaad baa waxaa jira wasaaradda aan geeyey aniga aan leeyahay wasaaradda waxbarashada aan geeyey qaybta xagga ah agaasimeerka waa u geeyey dabcan wax jawaab iguma soo celinin hadafkii markaas ma in wasaaradda ka shaqeeya ma ahayn laakiin waxay in risaaladan la gudbiyo haddii muqarar lagu soo dari karaa taa ay macquul noqoto iskuulada qaar waa arkay kulli qof aan ilmahooda iskuul dhigan ma jirto ay jirto macnaa buugaag nagala qaado la leeyahay farqurxin macnaa buugi farqurxinta hala keeno ma jirto iskuulada ma jirto sida badan iskuul lagu ma dhigo waxyaabaha keeni karna waxaa kamid ah dadka inta badan kuma baraarugsana kow inta badan macalinku qualified oo mar walba dhiga karan lama heli karo waxyaabaha duruufta keeni waa kamid qaarkoodna kuma baraarugsana barto laakiin haddii la raadiyo duruuftaas baahideeda waa la dabooli karaa waayo anigu hadda waxaan leeyahay akademiyadeyda macalimiin badan bay leedahay qof kasto in fartaas barto oo aan taskiye ka bixiya si dhigaan dhaha weliba hadda culayskii ihaya cabdullaahi waxaan iga rahaa boqolkiiba 60 uu iga degay markaan bilaabay 19kii taleefankayga dhulka lama dhigi jirin waa rabaa macalin aniga waa rabaa dad xataa hadda aan rabay inaan magacooda sheego laakiin mas-uuliyiin ah oo dalka muxuu ahaa meelaha ugu sareeya ka soo maraya laftigooda ayaa kamid waxyaabaha farta dhig waa hagaag aad iyo aad ayuu u mahadsanyainkaasi wuxuu ahaa cabdifataax ibraahim amiir ustaad amiir oo ah macalin dhinaca farqurxinta iyo weliba samaynta saxiixiyada ama barashada farqurxinta iyo weliba saxiixiyada
toddobaadkan ayuu marti igu ahaa barnaamijka qalin iyo qoraal iyo muuqaal baahiyaha qaranka midkaan mid lamida intaan ku kulmi doono annagoo isku duuban waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo aad u mahadsanta